xoghayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Burco ayaa nasiib darro ku tilmaamay hadal uu ku dhaliilay xisbiyada mucaaridka ah ee Somaliland. Afhayeenka xisbiga muxaafidka ah ee Kulmiye Cabdinaasir Buuni xoghaye Ramaax ayaa ku tilmaamay hadalka afhayeenka xisbil xaakimka Kulmiye mid nasiib darro ah oo aan qaban xisbiyada mucaaridka ah ee Somaliland. waa sida uu sheegay fayeenka sheegtay inuu Kulmiye u yahay fayeen on runtii aad uga xumahay waxa uu ku faanayo iyo wuxuu ka faanayo iyo wuxuu shalay isagu ka ahaa dalka ama xusbigii uu markii hore ku abtirsan jiray waxa nasiib wanaagii ah inay maanta ka soo yeedhaan oo uu ku faano maxaa la yidhi faanku waa xoolo aan cidi lahayn laakiin kan cid baa lahayd kuwii lahaa ee ku faani lahaa boqolkiiba 450 kuwii keenay annaga ahaayeen iyo raggii la mida qof kaliya ma keenin xusbi baanu ka tirsanayn kumana ciil qabno kuwii ku faani lahaa annaga ahaayeen inuu Buuni ku faano runtii waa nasiib darro Buuniyow forbin sartad ku caayayso xusbiga UCID xilliga xisbiga UCID baad ahayd kuwii forbin sartka keenay baad ahayd annagu waxaan ka mid ahay kuwa 54% ka jeegayso kuwii keenay uqdada kama qabno waxaanad fahminaa xusbiyada qaranka iyo danta qaranku inay ku jirto xusbiyada qaranka haday yihiin kuwa mucaaridka iyo haday tahay kolba xusbiga markaa ku guuleysta ee talada haya fulin ma tihid waad ogtahay habeenkii dhoweyd waxaanu kala saxeexnay xilli doorasho la galay nidaam bay leedahay doorashadu madaxweynuhu go'aan fiican buu qaatay xusbiga Kulmiye go'aan fiican bay qaateen wadani UCID saddexda xusbi iyo komishinkuba runtii way ku hambaliyaysan yihiin qabsami u socodka doorashada shuruucdii aynu u dhiganay baad runtii ku xadgudbaysaa oo tii dalkaad ku xadgudbaysaa oo tii xusbiga Kulmiye laftigiisa ayaad runtii ku xadgudbaysaa horta waa la ragii forbinsadka keenay baad ahayd adaa ka number 1 ah ayaabo xusbigu ku jabayna ashqaastii hoggaanka ka mid ahayd ee markaa ugu cadcadayd baad saaxiib ka mid ahayd laakiin anu waxaan ku oran lahaa hawshii aad boorama ka haysay inaad dib ugu noqoto taasaad shaqadaasaad ku fiicnayde inaad taabariye aan baro saabka shaqadii aad ka haysay boorame inaad dib ugu noqotaa waa kaaga fiican tan runtiina waa nasiib daran leh xusbiga Kulmiye waa xusbi qaran oo jira asxaabta qarankana waxaynu u samaysanay inay isdheeli tiraan maanta ka 4% ka helay waxaan rajaynaynaa inaanu 50% helo waana arki doontaa doorashadii ayaan baa ka hadhay waxay ku xidhan tahay kolba xusbiga muxaafidka mucaarid baa ka hor iman kara shalay Kulmiye mucaarid buu ahaa wuu ku guuleystay waa loo hambaliyay kama xumin inaad marka hore faanto xusbinimada wax loo sameeyo maantana inaanu idinka ridano oo idinkaga badsano dadka dhexdiisa ayaanu rabnaa laakiin waxa nasiib darro in nin magac xusbi ku hadlaya uu qaabkii fulinta u hadluu yiraahdo hal soo xidho xusbiyada qaranka ee kale oo uu og yahay inay xeer dastuuriya ku aasaasan yihiin kana mid yihiin rukinada iyo arkaanta dalku ku aasaasan yahay ayay ka mid yihiin xusbiyada qaranku ama mucaarid ha noqdaan ama muxaafid ha noqdaan waxa leeyahay marka aad saaxiib jawaabayso ama aad rabto inaad cid durto inaanad ka bixin saaxadda siyaasadda waana aanan leeyahay runtii aad baan uga xumahay in xusbigii dalka taladiisa ayay uu maanta aad afayeen u noqoto waynu isognaayoo dee waxaad tidhi waxaanu ku jirnaa kelmaddii aad dadku u dhibsaday ee aduguna aad ku faanto oo runtii la yaab lahayd oo xusbiga Kulmiye laftigiisa mowqifkiisa aan ka turjumaynin ee aad lahayd waxaanu ku jirnaa maxay faakahaysi baanu ku jirnaa afka siyaasadda way ka baxsan tahay kelmadaha caynkaas xusbi taladii dalka oo dhammi saaran tahay oo subax walba waajibaad ay gutaan u yaallo oo hoggaamintii dalka oo dhammi inay u fadhido inaad ku tilmaamto oo waliba aad macsharada kaga faanto faakahaysi baanu ku jirnaa fariintan u dirayo saaxiibaday ama xusbiga Kulmiye iyo hoggaankiisa sarena waxa weeye ceeb buu idinku yahay anu aflagaadayn maayo sidoo aflagaadoodo laakiin ceeb bay ku tahay
xusbi qaran oo weliba taladii dalka maanta gacan ka haya in lagu daydaaba ku waajiba xusbiyada kale dalkaynu wada leenahay waan wada ilaashanaynaa inaydaan keenin saaxadda hore inaydaan soo marinin noocyada sidaa u hadlaya oo aan ilaalinaynin sharciyadii xusbiga xeer hoosaadkiina xusbiga laftigeeda aan ilaalinaynin kimishinka qaranka oo maanta awoodda ugu sarreysa ee ka talinaya habsami u socodka doorashadan waa Fahmi Kaysa Xirsi Bulsha TV Burco.